السلام عليكم عاقل دربك عيو. وعليكم السلام داشنه. إيه ورهن عاقل دربك عيو. حجيبات كتمي وردي غيرك ugu taajirsanaba maanta iskeenay. Bas kadib baad siinaysi. Waxaan kuugu yimid arrinaan kala maarmi waayay. Aye. Ninkii dhagadhagaaya ma garanaysaa? Haa. Wiilkii aan dhalay. Haa. Waan garanayaa. Waa Fariid xiniye cadde ah. Waa ninka reerkeena laga dilo. Alla geesisanayay hooyadii baan dhashay. War ka raganimo ka dheere. Xabaalamaan baa tahay. Ninkii wuxuu noqday tuuga xirka goysa. Waxaan doonayaa inaan xidho. Adiguna aad maxkamadda ii raacdo si aynu waaran ugu soo jarnee inna mari. War joog. Keebaad xidhaysaa. Ninkaasi waa wiil how Fariid ah. Waa deeqsiyaan ma yada aqoon. Waa ninka anagu oo 10 nin oo reer goroyo weer ah baag jaada noo keenay ee habeenkii oo dhan naqaysiinayay. War jaadka islaam buu kala soo carraa inaan bixiyay maxaa kale sheegi. Habraha ayuu dulacooda baadhaa. Masaajidada ayuu kabaha ka xadaa. Waa tuug xirka goysa. Waa busaaradda waxaas inay dhigayso. Shalay taxafiiska dawladda aan tagay. Waxa la igu yiri nin keenso bashaash ah oo xil loo dhiibo. Isaga cidaan hayna geyn maayo. Ma dhagadhagaayo? Nacam. oo marka dhagadhagaayo la geeyay xafiiska. Ma xafiisada la qurminaya. Ma isaga ninkaasi dugsi sare ka baxay. Ma isaga tacliin bale. oo maciidan taad aragtay war tacliin maanta looma baahna. waxa loo baahan yahay tol meesha ku geeya oo kugu ilaaliya. maantana sabankan aan joogno reerkeena ninka dawladda inagu matali kara waa dhagdhagaanyo. waayo dhade waxa loo meesha wala isboobaya waxa loo baahan yahay nin wixii inoo soo dhiciya oo wixii sana qaata inagana wixii ina siiya. War xafiisyada dawladda ma waxa loo samaystay in dadka lagu boobo miyaan loo samayn in bulshada iyo dadka danyarta lagu horumariyo. midda kale waxa jira mid ay walaalayihiin oo wax bartay oo isaga ka yar haddii aad cid meel wax keenayso dee kaagii kaasa wax garanayay oo dadka iyo dalkaba wax tari doonee. war dhageyso kaas looma baahna. waa miskiin af gabdheed leh. meeshana waa la isboobayaa. reer walba waxa ay keeneen habaahawtahoodii. mas'uulka dawladdu waa adeega dadweyne wanaagiisuna waa inuu leeyahay waxbarasho waa aragnimo iyo daacadnimo si uu dadka si wanaagsan ugu adeego. waa inuu leeyahay anshax wanaagsan iyo akhlaaq. waa inuu danta guud ka horumariyaa dantiisa gaarka ah. Soomaad garan marka ayaynu helaynaa maamul wanaag musuqmaasuqna yaraanaya. waxa idaacadaha ka sheekeeya waaqacsi horumar kama jiro. dibiga doolood dhagihiisu waxsan way maqlaan waxsanse ma arkaan ee ha dhageysan. maanta wax caqiibo leh ninka xoolaha dawladda ka faraqabsada. ninkan booli qaran ka faraqabsani waa nin dhaxalkii aabihii ka qaday. xeerka xafiisyada yaalaana maanta waa nin qadhoon hela nin quwaa hela nin iskaba qada hal la qabaxtamo. waxa la isku eriyanayo wax kale hamoodin waa boobe anay barneen. si aynu helo maamul wanaag waxaynu u baahanahay the good governance waxaynu u baahanahay inaynu iska dhaafno qoloqolada iyo qabiil wax ku qaybsiga. inta si xaalkeenu yahay qaatay qaado wala inayna kob cagaar leh ka soo durdurinayn. way ya shalay bay maanta dhaantay. war waxaan maanta xilka inoo hayay gabigoodaba waa kuwii waa caalin sheegay. oo muxuu yiri caalin wuxuu yiri antuuga wableeye iyo alaasha libaaxle iyo cidnaba umaroona iyo cashiira masoora iyo caanaha kaligii dhamiyo caruuraha booba iyo agoon kala carara iyo ciroolaha umanixiyo cunaa aan miigan iyo aweyskii daaq tagiyo intaasaa caasha daray caddiintiyo jiirkiyo rag baa caanihii dhamee maxaa cidlada dhigay. tollaay oo meesha iga kici oo dhagdhagaanyay doon waxay noo dhiciyeen tan meesha lagu kala tigine. waxaan oranayaa
halka ugu qoyaanka badan ku qora ee lacagtu taalo abu bidaarka miyaana la bahdilay sow raggii boobi jiray maahin